هبتي على دوياني magaalada Hargeysa habeennimadkii xalay tolo waxa lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegayay sanad guurada shanaad ee ka soo wareegtay waqtigii la aasaasay ururka hidaha iyo dhaqanka ee Halkar Academy. munaasabadan oo lagu qabtay xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin dadweyne iyo waliba mas'uuliyiinta ururka Halkar Academy. ugu horreynna goobta waxaa ka hadlay gudoomiyaha Halkar Academy Cabdiweli Samriye waxa uu ku dheeraaday sooyaalkii taariikheed ay soo martay akaademiyada Halkar ee dhaqanka iyo hidaha. caawa markaan soo hortaaganahay dad badan oo halkan ka muuqday dadka oo aan u suurtagelin oo naga maqan cirfada jooga ayaan halkan soo istaagay waxaan kaloo martaan aad iyo aad uga mahad celinayaa jaamacadda maamulka jaamacadda Alfa oo ugu horeeyay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Xasan oo ahaa qofkii ugu horeeyay ee la siiyo meel hooyo oo aan ku ciyaarno rumahaantii ma ilaawi karno Cabdirasaaq aad u mahadsan isagii jaamacadiisu waa hooygan ku ciyaarno waa hooyga dadka ay nagu bartaan waa qofka hiil iyo howlba la garab taagnaa aad iyo aad uga mahadsan halka waxaan ku inaan aad uga mahadnaqayaa Sariya oo iyadana aan isticmaalno oo aan ku ciyaarno maalmo ku leenahay aad u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan kiilaaweyn agaasimaha guud ee dhaqanka Cabdiyare oo imkaana bartanaana ka arkayno aad u mahadsan yahay adibuna sida sharafta leh qiimaha leh nagala soo qaybgashay xafladda qiimaha iyo qaayaha leh waad ku mahadsantihiin halka waxaan ka ilaawi karin kooxaha kala duwan ee caasimadda dowladda Soomaaliland ka ciyaara iyo dadka gobolada qaar ka soo casuumo goobta fadhiya ka soo qaybgalkiina anaga wax weyn buu yahay aad iyo aad u mahadsantihiin inagoo isku duuban oo gacmaha haysan insha Allah ayaan hor u soconaynaa aad iyo aad u mahadsan sidoo kale iyaguna goobta waxaa ka hadlay agaasimaha xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa iyo agaasimaha ururka dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo. xeerada dhowr qaybood ay ka kooban tahay waxyaabaha ugu cajabta badan ee xeerada runtii lagu arko waxa ka mid ah inaanay isbedel aanay ku keenaynin haba yaraatee oo ay jirayso muddo aad u fara badan rumaantii marka waxaan filayaa mar haddaan pandaalka qaaday rag badan hamuunta halkaa ka soo haysa marka dadka loo qaybiyo kulley inta loo qaybinayo insha Allah haddii ilahayna waxaan horta koobaadka aan bogaadinayaa Halkar Academy iyo kaalinta ay ku jiraan iyaga iyo ururada la midka ah ee xarunta dhaqanka sida tooska ugu xiran ha noqoto mid ay iyagu isku dhiirigeliyaan ha noqdo kulama iyagu isku tababaraan ha noqoto mid ay iyagu isku soo saarayaan si ay bulshadooda wax badan ugu qabtaan aad baan u bogaadinayaa kaalinta muhiimka ay ku jiraan waxaa kaloo doonaya inaan ku hambaliyeeyo sanad guurada shanaad ee ay caawa xusayaan dhammaantiin aan halkan isugu nimid inaynu la